Assalaamu calaykum. Dhaqanka dadka waxaa saameeya dareenka jirka. Tusaale ahaan, waxaa jira xiriir xooggan oo ka dhaxeeya culayska iyo sifooyinka, sida muhiimadda iyo khatarta. Qofka waxaa lagu qiimeeyaa inuu yahay mid ka sii daran oo sii jiri kara haddii sifigiisa lagu dhejiyay gal culus iyo cagsi. Markasta oo go'aan kala qaadanayo uu aad u adag yahay, ay dadku u badan yihiin inay wax waliba sida ay yihiin uga tagaan. Haddii baqaarku leeyahay xulasho badan oo dadku isla markiiba ma ogaan karaan badeecadaha ka wanaagsan, waxay u badan tahay inay baxaan iyagoon iibsan. Isha ugu sareysa ee xaasnimada nolosha dadka waxay ka timaadaa walaalaha. Qof kasta oo walaal leh ayaa fahmi kara sida khilaafka u dhaxeeya oo mararka qaarkood u horseedi kara dareen xooggan. Waxaad wax ku baran kartaa ku dayasho. Tani waxaa loo yaqaanaa barashada bulshada, waana mid ka mid ah noocyada ugu horeeya ee habdhaqanka bulshada.